bismillahi raxmaani raxiim. Casharkan waa cashirkii 44aad. waxaan ku qaadanaynaa 4 eray oo uu ka bilowdo xarafka i. marka isla socod wanaagsan insha Allah. kan ugu horeeyo sida aad arkaysaan waxaa midkan gaduudka ah ama casaanka waa i. marka i aad dhahdo labadan buluugane hore waa usoo aragteen waayo. muxuu isku noqonaa marka i iyo haddaa maqasho saanay u qoran tahay iyo asalkeeda meesha ka timid inaad fahantid waa muhiim. okay, ereyga labaad waa i iyo ri. iri. okay, dadka qaar iri dhaho, dadka qaarna waxay dhahaan ariga, dadka qaar waxay dhahaan iri. marka anyway inaan ku fahanno baan usoo qaatay ereygan waa iri. okay, ereyga saddexaad asna wuxuu ka bilowdaa laba i maxaa la dhihi jiray waa shaqal dheer soo maha. maxaa ku xigo marka qaybta buluuga waa da iyo da. maxay isku noqonaya marka iida waa ciida marka si aan ereyga u fahanno iida. okay, ereyga afaraad asna wuxuu ka kooban yahay laba qaybood, wuxuuna ka bilowdaa shaqal dheer waa qaybtaana waa sho. muxuu isku noqonaa marka iisho. marka afartan erey waxaan rajeynaa inaad fahanteen. la socda cashirka 45aad. guuna idin rajeynaa dhammaantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.